iskoorimaad rabshada wata ayaa maanta gelinka hore ka dhacay magaalada Laascaanood kaasoo u dhaxeeya ciidamada bilayska gobolka Sool iyo sidoo kale qaar kamid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood. Rabshadahan ayaa ka bilaabmay ka gadaal markii taliyaha qaybta booliska gobolka Sool oo sida la sheegay ku soo eedeeyay mid kamid ah ciidamada bilayska magaalada Laascaanood ka howlgala inuu ka dambeeyay baxsashada maxaabiis ka baxsatay sida la sheegay saldhigga dhexe ee magaalada Laascaanood taasoo kaliftay in askariga markaas ciidamada baxsasiiyay ay ciidamada bilayska oo ka amar qaadanaya taliyaha qaybta dibadda ay ku toogtaan gudaha magaalada Laascaanood. haddaba shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa iyaguna qoryahooda soo gurtay isla marhaantaana weerar ku qaaday qaybta bilayska gobolka Sool iyo sidoo kale saldhigga dhexe ee magaalada Laascaanood. iskoorimaadkan u dhaxeeya shacabka magaalada Laascaanood iyo ciidamada bilayska ayaa maanta galin hore waxa uu ahaa mid magaalada Laascaanood laga maqlay dhawaaqa rasaasta qaybihiisa kala duwan oo labada dhinac ay iswadaarsanayaan. inta la ogayay 3 ruux ayaa ku geeriyootay tiro kalena waa ku dhaawacmatay ka gadaal markii ciidamada bilayska iyo shacabka isfarasaaraan iyadoona ay indhaha igu qabanayeen qaar kamid ah baabuurta ay ku hawlgalaan ciidamada bilayska ay shacabku dab qabasiiyay. dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa iyaguna kadib waxay boobeen qaybaha kala duwan ee laamaha dawladda ku shaqeyso oo ay kamid yihiin maxkamadda magaalada Laascaanood, qaybta booliska gobolka Sool iyo wasaaradda hawlaha guud. taliyaha qaybta booliska iyo sidoo kale qaar kamid ah ciidamada bilayska oo aan iyagu haybahan ka soo jeedin gobolka Sool ayaa iyagu iskaga baxay guud ahaanba magaalada Laascaanood sida jawga guud ee magaalada haatan uu kacsan yahay. haddaba shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa maanta TV-ga caalamiga ay kala sano dareenkooda la dhex qaaday waxay sheegeen ka dhacay shaqo yaab leh. dadka reer Laascaanood waxay muujiyeen waxay rabaan khasab ma aha in dowladnimo dad lagu khasbo maalmo waa in dad la laayo shacab oo bilmageeda hayo hore waxa la dilay ninkii xildhibaanka dowladda federaalka ayaa aqal lagu dilay maanta ninba kiir magaalada dhexe lagu dilay waxa uu maleeyahay sinaayo meesha wuxuu yimi hawa jacdo ee maanta magaalada dhexe isku leeso meesha dhulka eegi annaga iska leh waa ku dirirayna Soomaaliland waxa dhahay meesha kama jiraan annagu dhulkan sharci darro looguma socdo jaamacada ka bixi karaan maaha waxaan sheegayaa silaanyo iyo dadkan uu meesha ku hayo nagala bax waxaan aad meesha keentay dulqaadan mayno dadkayagi waa la laayay adaa ka mas'uula adaa noo soo diray adna ka bixi mayno waxaan nahay xor dhulbahantaana la yiraahdaa jaalle ka bax meesha waxaan halkan ka dhiganayaa fikirkayga mudaharaadkan maanta taliya qaybeedku abaabulay oo dadka kiciyay oo mas'uulka ka ahaa in waxaan magaalada ka dhacaan magaalada ayaan darada haystaa waxa weeye barasaaban gobolkan u dhalan taliya qaybeedan u dhalan gudoomiye maxkamadan u dhalan laan socdaalan u dhalan waa gobolkan wuxuu noqday gobol la qabsaday waxaana Soomaaliland hadii gobolka ka bedeli weydo waxaadaba ay wada raacsato ka baxdo. maanta waxa ka dhacay magaalada Laascaanood waxa weeye dad shacab ah oo ay leysay maamulka Soomaaliland baa laayay anagu adkaysan mayno intii nalaynay inay de Soomaaliland ay de wixii dadkii la leynayay aanu garan weyno waxa leynaya de waa iyada ilaa maanta bilaahada maanta aanu aragnay iyagoo leyna soo cararaysa markuu ninku geel leeyahay ee geel fara badan leeyahay hashiisa madida la cuno oo dhirwaa cuno oo hashiisa hadii la barooy awrkiisa gurgurshaa dhirwaa cuno hadii la barooy yahay tambadisa uu cuno suu cuno iyo dhirwaagu marka dambe geeli uu nag buu noqdaa annaga nag bay doonayaan inay naga siiyaan aan arkaynay iyagoo tuuta ay wata ay la dileen ma jirto maanta mayd bay yaalla iyo dhaawac ayaa la wada aragtaan. bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan uga ambaleynayaa dhammaan shacabka reer Sool reer Laascaanood qadiyada iyo wanaagga iyo jaahidnimada ay ka muujiyeen maanta waxaan Sool waxaan ka socon doonin kuna sii joogi doonin shicibka waan reer Laascaanood dooni mayna Soomaaliland ko waxa weeyna naga baxana dhaafa geesiyo barakaatu magaalada Laascaanood maanta waxa ka dhacay mudaharaad xoogan oo rabshada wata waxa sidoo kale weerar xoogan loo geystay xarunta booliska ee magaalada Laascaanood saldhigga dhexe waxa qabsaday bulshadii magaalada tan waan ku dhimanaya ana keenay markii hore imikana ana dadku waxay aaminsan yihiin jacsigeednimo u diiday uma diidin dhulbahantinimo u diiday ma aha markii ugu horeysay ee tan iyo intii Soomaaliland ay soo gashay magaalada Laascaanood ay ciidamada bilayska iyo shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood sidoo kale soo farasaaraan samahaantaana khasaaro noocan oo kale ka dhasho. maxamed axmed jaamac maxamed budaanshe xaqiiqdiyaha caalamiga ee kalsan TV magaalada Laascaanood.